waxaan doonayaa maanta inaan halkan habaliyo iyo bogaadin uga diro dhammaanba dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ugaasiyada boqorrada salaadiinta malaaqiyada iyo dhammaanba bahda dhaqanka waxaan si gaar ah u hambaliyeynayaa oo aan halkan uga salaamayaa ugaas Mustafa ugaaska Beesha Ciise oo lagu soo dhaweeyay magaalo xuduudeedka Togwa Jaale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waan hambaliyeynayaa waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad qab iyo cimri dheer waxa kale oo aad iyo aad uga mahadcelinayaa sidii miisaanka iyo milgaha lahayd ee ay u soo dhaweysay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan uga mahadcelinayaa sida ay dhaqanka xukuumaddu u xishmaynayso aad baan uga mahadcelinayaa waxa kale oo aad iyo aad uga mahadcelinayaa salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland oo iyaguna aad u soo dhaweeyay inkasta oo ay iiga dhex muuqdeen salaadiin gobolka reer Awdal Suldaan Saleebaan iyo Suldaan Baadi ay iiga dhex muuqdeen taasoo ay shacabka Soomaaliland ay su'aalo iska weydiinayaan gaar ahaan gobolka Awdal waxay su'aalaha ay weydiinayaan rabaan inay uga soo jawaabaan salaadiintaasi dhacdadii ka dhacday kadinka afaafka magaalada Boorame 27 bishii 7 2020 dhacdadaas oo ku dhacday ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi qaybtii ay ku lahaayeen baa dadka gobolka Awdal ay rabaan inay uga soo jawaabaan inta markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa oo si gaar ah u salaamaya soo dhaweynta ugaaska Beesha Ciise loo geeyay loo soo dhaweeyay xukuumadda iyo shacabka reer Soomaaliland bay ku soo dhaweeyeen waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Cabdiqani Maxamuud Caateeye baan aad iyo aad uga mahadcelinayaa isaga ayaa mas'uul ka ahaa oo nidaamiyay oo isku soo dhaweeyay ugaaska Beesha Ciise iyo xukuumadda Soomaaliland waana wixii ay garan waayeen wasiiradii la qayrka ahaa ka soo jeeday gobolka Awdal way ka badbaadin waayeen rasaas lagu furo oo isaga iyo xukuumaddu isku dhacaan way ka badbaadin waayeen taasina arintaana way ku fashilmeen waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wixii ay garan waayeen ayuu Cabdiqani gartay aad baan kaaga mahadcelinayaa wasiir waxa kale oo doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi horta waxa ku soo salaamaya dhammaanba dadka shacabka gobolka Awdal baa ku soo salaamaya waxaanay ku leeyihiin waa la isku soo noqon wixii nool adduunyada aad baan ku soo dhaweynaynaa waan ku salaamanaa inta marka laga gudbo Soomaalidu waxay tiraahdaa laba socoo ad jeceshay hadii ay islaayaan deemarada lagu kala celiya waxaan doonayaa xukuumadda Soomaaliland oo anaga xukuumadayadii iyo ugaas Cabdirashiid oo ugaaskiyagiya waa nagu ceeb ama doqoniimay nagu tahay inay carag ku kala maqnaadaan muddo sanad iyo googo nin garashada bay ceeb ku tahay ciidda korkeeda doqoniimay nagu tahay in xukuumadda iyo ugaasku ay sidaa ku kala maqnaadaan waxaan jecelahay inaan arintaa dhameeyo oo aan ka odayo ayaan jecelahay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay xukuumadda iyo ugaaska iyo cidii kalena inay shacabka Soomaaliland iyo dhaqankuba inay gacan ugu siiyaan inta markaan ka gudbo waxaan u sheegayaa beelaha Gadabuursi haddii aad midnimada iyo isku tagga iyo walaalnimada doonaysaan inaad aragtaan ku taamilo qaata ugaas Mustafa iyo beeshiisa sida loo soo dhaweeyay haddii aad rabtaan kala tagga iyo kala dhadhaaraynta iyo isnacaybkana waxaad jisaheeda ka heli doontaan oo aad ku garan kartaan sida ugaaskiinii loo rasaasiyay idinkuna aad waxba uga qaban kari weydeen taasi waa kala tagiina cidna lagu canaanmay waxaan kale doonayaa inaan halkan baaq uga soo diro aniga oo codsi aan uga soo diro uma baaqaya laakiin waan codsanayaa waxaan codsanayaa gudoomiyaha beelaha direed oo gudoomiyaha beelaha Samaroon ahna beesha dhexe ee Suudaanka beesha dhexe ee Gadabuursi Suudaan Dhawal
waxaan aad iyo aad kaaga codsanayaa oon si xishmad iyo karaamo laba kaaga codsanayaa in aad ku soo dhaweyso ugaaska beesha ciise magaalada Boorame iyo gobolka Awdal runtii waa magaalada ugu xigta magaalooyinka Boorame ugaas Mustafa magaalada Boorame ugu xigta waana sharaf iyo karaamo iyo duco iyo walaalnimaanay inoo tahay waxaan aad iyo aad kaaga codsanayaa gudoomiye oo suldaan waxaan kaaga codsanayaa inaad arintaa qabanqaabiso oo aad gogol martiqaad leh u fidiso runtii waan martiqaadi lahaa anigu laakiin waajib iguma aha meesha aad adigu joogto inaan anigu martiqaad ka bixiyo waajib iguma aha sidaa darteed baan kuugu karaamaynayaa oo aan kuugu qiimaynayaa cid kaa filroon gobolka oo arintaa qaadi kartaana ma jirto suldaan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waxaa kaloon doonayaa inaan iyagana codsi u diro suldaan Abshir iyo labada suldaan Maxamed iyo ganacsatada magaalada Boorame inay arintaasi garashale oo muhiima oo mudakarnimo ah ay ula qaban qaabiyaan suldaanka dabadeetana ay arrinkaasi qurux badan u dhigaan waxaa kaloon doonayaa nimankii gobolka Awdal deganaa ee reebtiga uu ahaa ugaasku la garto oo laga garto inay joogaan yaano hablihii ay bashxaradaan inamadii abtiga wahaana ciyaaraan sidaasaan idinku bogaadinayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan doonayaa halkan inaan raali gelin gooniya ka bixiyo runtii laba jeer oo aan shir jaraa'id qabtay oo shirkaygan maanta ku xigay waxa iga cawday ehelka iyo qaraabada iyo xaafadaha ay ka soo jeedaan reer Sheekh Cumar Good iyo reer Sheekh Maxamed Faarax aad iyo aad baan arintaa uga raali gelinayaa maadaama saxaafad markii hore ka hadlay imigana saxaafad baan raali gelinta ka bixinayaa waxaan leeyahay raalli ahaada waan idin raali gelinayaa saasaan ku soo gabageynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.